السلام عليكم. maanta roobkii adduunka ayaa halkan ka da'aya. Allah sorry xisaab baa isu khaldantay. Aniguna waxaan u socdaa maanta waxa la yidhi waa lagu ganaaxayaa maalin walba dhakhtar ingiriiskana waa maxay dhakhaatiirtu dadka eryanayaan waxba ma qabaad ka kari la'adahay waa ku eryanayaan ballankaale dhiig soo qaad bilaayo soo qaad rafaad soo qaad adduunyo soo qaad marka maanta waxaan u socdaa calaa kulli xaal maanta waxaan u socdaa dhakhtarkii wuxuu yidhi ilaa dhowr ballamood 5 ballamood 6 ballamood baan gooyey wuxuu igu yidhi haddaadan iman ganaaxa dalaq waa lagu ganaaxayaa buu yidhi haddaadan iman dhakhtarkii baan galay waan ka soo baxay ma aqaan dhakhaatiirtan horta waa la soo duldululiyey 3 qasabadood baa laka qasabad baa layga shubay tan kale 2 qasabadood baa laga soo shubay gacmihii oo dhan waa laysaasa la soo duldululiyey qasabado marka horta aniga alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxa weeyaan way yar tahay dhakhtar aan horta intaan xanuun u tegay aan jiifsaday oo weligay dhakhtar horta waxaan iska bixiyaa tan waa iska bixinaya suuqa halkan saartay muraayadaha iyo waan dadka dad muraayadaha wax ku duuduumayaan oo halkan iga dhig dadka muraayadaha isticmaala iyo ma ihiyaan muraayada eeg anigu horta alxamdulilaahi rabbil caalamiin dhakhtar horta noloshayda xanuun aan dhakhtar u jiifsaday ma jiro alxamdulilaahi rabbil caalamiin taana ilaahay baa loogu mahadiyaa oo wax ilaahay loogu mahadiyo laakiin ingiriiska maanta dhakhtarkii waxaan u tagay waxa la kumboon baa lagu ganaaxay waayo GB-gi waxay GB baa ka jira waxaan la hadlayaa dadkan ingiriiska reer ingiriisan lama sheekaysan waxaan la hadlayaa dadka ka baxsan iyo dadka Afrikaan ka yimid anoo hadda reer ingiriis wuxuu ma sharaxay waxaan u sharaxayaa dadkii kale halkan markaad timaad weynaad GB is register gareysid GB-gaas waa inuu ku baaro marka dhakhtar khaas aad yeelanaysaa oo kula xiriiraya dabeetana hadaad maaragtay wax yar iyo ka khaldamaan iyo waxa soo dhan marka GB-gaygii markaan is register galay kuma baan noqonba waa register baan iska dhigay kuma noqon alla hal lambar oo NHS oo markii coronavirus-ka iyo xaasan leysiyon ka soo qaatay ma ku noqon marka 100 jeer baa wax lagu yiri kaale waxaan kugu sameynaynaa check up waan iska ignore gareyn jiray hadda ugu dambeyn malaa waa banantii afraad iyo saddexaadan ka dhuntaan in tiginba marka iminka waxa la soo diray warqad dheer wax la yiri hadaad balantan ima weydid compound baa lagu ganaaxayaa kunka aboon kun iyo 300 kun iyo 400 dollar ayaa lagu ganaaxayaa hadaad ima weydid hafiyo baro baan iro diwaan cararo waan tagay 4 qasabadood dhiiga layga soo shubay 4 qasabadood dhiigaad wax laygu sato wadnaha farta ku xan leeyahay 4 qasabadood dhiiga la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah waxa kaaga si daran haddii in yar lagu arko xataa dhikar yar madaxa ku yara xanuunaya ama wax maranta kula kulmo waa lagu daba dhignay maalin walba kaalay ku meeyay xigii taagan tahay dhuq marka imika wadnaha farta ku xan ku leeyahay caafimaad baad siisay horena iminkana ii siisay alxamdulilaahi rabbil caalamiin aan waxba liiga soo helin waayo hadda dhibaato ma qabo meel ma xanuunayso laakiin waxa iga yaabiyay dhakhtarkan dadkan dhakhaatiirtan dadka eryanaysa maxay tahay balan dhakhtar baan leeyahay dadka qof walba xarka ingiriiska jooga balan dhakhtar baan leeyahay balan dhakhtar baaba lagu sameeynaya aduuba shaqo ka dhiganayaaba dhakhtarka dhanba wuxuu mushaharka ku qaadanaya oo loo sameeynay waa adiguba gabigaaguba ka shaqeynayaaba dhig bay xanuuntay miyaa madaxu ku xanuunaya miya maalintii ugu yaabka madaantii Soomaaliya tiri ka waran hurdadaada ma seexata ma waa seexdaa baan ku cuntada ka waran waa sida caloosha ma ku shubantaa way shubantaa waa man yaabayba marka buufis bay kugu xirayaan marka dadka ingiriiska wada waalan oo dhan waxaan soo ogaaday in dhakhtar buufis ku riday wallahi billahi tallahi dhakhtar baa buufis ku riday dhigtaha sida tan waxaan macna lahayn ba waxa ku ri gastri oo kale iminka anaga Soomaalida aynu nahay gastriga waa wax iska dhaco dadka dhan wada gastri bay qabaan de gastriga hadii camal lagaaga dhigto ka waran
waxaa gaastari xabadda kiniina la iska liqi jiray ummadabooda gaastari bay qabtaa wala iska socon jiray xanuun baa noqon wax kale lama jiro wax kale ma jiro wax kale laakiin halkan stresska ugu badan wax waaye hadda maanta 3-4 qasabadood laga soo shubay anaa waa stress number 1 waxaan ugu soo sheegi doonaa maxaa lagu soo oran doonaa aniga ma igu riday ka war buufs caadiya wallaahi billaahi tala kuwaasoo ka waran waxyar kugu helaa allah raxmaanka ayaa caafimaad badan marka maantana mabaan tageen waxaan sir compound markaan maqlay aan compound may wallaahi inaan compound siinin dad wareertidu waaratid marka dhaqaatiirta dadka buufis bay ku ridaan shaki bay ku ridaan ha dhageysanina wallaahi billaahi tallaahi aad u dhageysanina inkastoo horta dhaqaatiirtu ayna deemaad aragtay hadda ka hor gabadh baa waxay ku tiri inan yar baan markaan dhalay waxyaabaha qaar markaad aragtidna argagax weeyaan ee buufisku naadan uun dee aad u aaminin baa gabadh baa igu tiri inan yar baan dhalay inantii yareed ee aan dhalay bay igu tiri wax lagu 12 sano maalintii ugu way waalanaysaa inanta yare markay saa u dhalatay bay dhaqaatiirtu waxay ku yiraahdeen 12 sano inanta yar markay gaadho maalintii gaadho way waalanaysaa waxay tiri inantii yareed 12 sano maalintii u dhamaatay iyadoo iskuulka joogtay tiira dharkiiba bixisay waaba waalatayba marka dhakhtarkii waxay dhag way ku soo dhamsalay inantii yareed systemkeedii wixii meeshii ku jiray kaale inantii yar waqtigii baa u dhamaaday bismillaahir rahmaan argagax marka iminka anigii baa wadnaha farta ku hayay halkan maxay ku oran doonaan waxay ka soo sheegi doonaan hadda inuu anaan isnafaqeeyo dib isnafaqeeyo wallaahi billaahi tallah waa inaan isnafaqeeyo kii gira dhan waa laga soo shubay kada guriyaan laysoo rikaabsane أصحابي يعني دقيقة دخاتيرت والله شكلي كوريان ما طبعا هذا شكلي أدونك وحاسة عشق جوابت لي صوصين طبعا جوابت لي صوصين مركز أنا قام طبعا خراب ضوء طبعا البابي يقولون لي يعني